ceelashu sida ay u soo maaxdaan marba marka ka dambaysa biyahooduna ay u macaanaadaan ayuu barnaamijkuna u soo maaxanayaa hadba hadka ka sii dambaysana wuu sii macaanaanayaa waxaan rabaa hal qof oo geesi ah oo gacanta taaga halkana igu yimaada su'aal baan weydiinayaaye abaalmarinta aan gacanta ku sidana qaata haye stage-ka soo istaag haloo sacbiyo wiilkaas dhalinyarada ah maadaama uu geesinimo weyn muujiyey Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa geesi Ilaahay ma xilo macnaha qof geesinimo muujiyey marnaba ma dhibaatoodo ama ma kadsoomo maadaama geesinimo iyo isxilqaan muujisay dhowr kun oo qof hortii waxaan ku weydiinayaa su'aasha ugu fudud ee abaalmarintan ku qaadan kartid su'aashu waxay tahay magacaaga oo saddexan bulshada u sheeg magacaygu waxaa weeye Fadxi Sheekh Ismaaciil Fadxi geesinimadiisa darteed ayaa su'aasha ugu jilciyey abaalmarintaas baanu gudoomay waa kaad uu kaga soo adeegan karo mid ka mid ah dukaamada waaweyn ee magaalada ku yaala waanaad arki doontaa kaadkaas aad baad u mahadsan tahay mar kale ugu celiya sacabka madxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee ku yaala magaalada Minnesota waxa uu abaalmarin siin doonaa ama guddoonsiin doonaa ashkhaas muhiim agteena ku ah in badanna bulshada siyaabo kala duwan ula soo macaamilay ama siyaabo kala duwan saameyn inoogu leh waxaan u yeedhi doonaa caawa oo halkan abaalmarinta ugu horeysa la guddoonsiin doonaa Axmedey Cabdi Gaashaan waa mid ka mid ah lajamada ugu waaweyn ama fanaaniinta waaweyn gaar ahaan waxa lagu xasuustaa riwaayadaha iyo heesaha banaadiriga ah wuxuu sameeyay 15 riwaayadood oo 3 ka midii ay jacayl ahaayeen halka 12 ka midii ay jacayl ahaayeen halka 3 ka midina ay ahaayeen heeso wadaniya waa Soomaali dhab ah ummad Soomaaliyeed baa isagoo ku dhaawacmay Soomaaliya soo kaxeeyay oo geeyay wadanka Norway marti buu yahay reer Mareykan iyo reer Minnesota waxaan doonayaa inaad ka yeeshaan oo sacabka u siisaan sidii marti loogu sacabin jiray xilalka uu ka soo qabtay Soomaaliya waxa uu ahaan jiray agaasimaha hidaha iyo dhaqanka ee tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed waxa lagu xasuustaa heeso aan ahaa oo banaadiri ahaa oo ay ka mid ahaayeen Shumeya Shumeya Shumey waxa kale oo heesihiisa ka mid ahaa warbixintii jacaylka waaye waxa kale oo heesihiisa ka mid ahaa wareerka waqtiga keenaye waxa abaalmarintiisa guddoonsiin doontaa Ifraax oo ka mid ah tiimka madxafka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي دمانتين وايدين سلامي صغير إي كبير أب إي هويو أبو إي أبايو
waqtigana waa gaawan yahay 114 quraankeena cadadkiisa ayaan idinku salaamay gaar ahaan reer Minneapolis oo martiba u nahay caawa warka ma badinaayo waqti dambe waaye laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa ciyaar waa galin dambo farax anigu baa ii sheegtay waa leeyla socdaa kaligeyga mihi wehel baan leeyahay waxa ila socday Faadumiino waxaa kala ila socda Cusmaan Bullo nin la yiraahaa ciyaartooygii weynaa Faadumiino goordhoway masraxa ruuxi doontaa way idin joogtaa caawa Faadumiino hadda waxa aynu guddoonsiin doonaa abaalmarintiisii Axmedey Cabdi Gaashaan wuxuu ku guuleystay abaalmarinaha madxafku bixiyo qaybta loo yaqaano Legends Award سعبنا المغلا ربا مش حرد بندونا يا عدي قرنا يصحي تاينا المغلا يدنا أد بوما سيء هاي أدير أحمد دي إلى سي قلبية Somali da Hermania Somalida Hermania Bulit Zakiri ya Kabir Assalamu alaikum Masajkaas abwaanka idin soo dhigay wallahi aad idin dareemoya waa mahadsantihiin waxa aanu sameeyno si wax fiican waaye aad u mahadsantihiin waa inuu mar kale heestiisa haddaan qaado waxa waaye shumeya 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 soo shurko ima ayadoo dhammaystiranne waa arki doontiin indhaha lee liigu soo taagooyaaye maxaa haleyne wali sokuroyale marka waa idin salaamiyaan mar labaad iyo mar saddexaad waa inoo barnaamij kale Faadumiino caawayna la joogtaa masraxayna goordhow ima doontaa waan idin kala bixi doonaa waxaan doonayaa inaan xuso ama u yeedho qofka labaad ee aan abaal marin doono waa Cismaan Bulle oo iminka ahaa qofkii idin riwaayadeynaya ama idin majaajileynayay Cismaan waxa uu ahaa macallinkii tiyaatarka ayuu noqday waxaana madax u ahaa Axmedey oo garabkiisa taagnaa waa ciyaaryahan ma ciyaarna Cismaanow waxaan doonaynaa inaad ciyaarahaagii wax naga tusto intaan abaalmarintaada gacanta lagaa soo gelin sababta aynu Cismaan abaalmarinta u siinayno inteenaasoo qof buu inaga qosliyay oo alalaas iyo mushxarad baa isu timi waxaynu guddoonsiin doonaa abaalmarintiisii oo ah Legends Award
أكتم بسمين لاين أكتم بير بقبل لاين أوير بقبل abaalmarinihii baynu ku soconaynaa qofka saddexaad aynu halkan ka abaalmarinaynaa waa cabdiraxmaan yabarow madaxa VOA ee qaybta af Soomaaliga cabdiraxmaan aan soo dhaweyno waxa guddoonsiin doona adeer Cismaan iyo alfanaan Cabdinuur Alaale isla beena lingi xiiso luxdanaaday dabci laasin kulli faaqan labadabaynta waxaan isleeyahay in madashan dadka moogta anigu ma heesayo fanaan ma ihi sida alaalo kale iyo dadkii halkan ka heesayay laakiin haddii aad mikrofoonka loo dhiibo nin caruur ka korsaday waad qiyaasi kartaan inaan laga fujin karin soo ma waad idin soo gaabin doonaa insha Allah marka hore inta aan hadalka bilaabin I would like to make a disclaimer oo caadiyan markan oo aan sameeyno markii VOA kale laga yimaado that disclaimer wuxuu noqonayaa I'm only speaking on myself and not on behalf of VOA but waxa igu filan inta markan oo aniga martiqaadka la ii sameeyay intaas kadib marka hore ilaahay markan oo halkan isku keenay caafimaadka aan halkan caawi joognaan u mahadinayaa marka xigta saaxiibkay Cusmaan Maxamed Cali Guray ay malaha uma taqaanaane Maxamed Cali Guray ayaa aan mahadiisa iyo teamka guddigiisa iyo board of directorska ee abaabulkan iyo alaabta iyo madashan isku keenay ayaan u mahad celinayaa marka haddii aan laba eray ka idhaahdo madashani waxay u taagan tahay iyo abaalgudkani wuxuu u taagan yahay labaan u kala qaadayaa mid waa mid ani personala taariikhdii iyo waayajoogii iyo wixii aan markan oo aan ka soo qabtay idaacadaha oo muddo dheer waxa laga yaabaa inaad weydiisaan ninkan goormuu idaacadaha bilaabay laakiin taa waxaan ku soo koobayaa Allah u naxariistay Cumar Dhuulaa waxa la yiri Cumarow goorma dhalatay markaasuu yiri nin weyn iska dheh marka si yaro kooban buu sheegay anna waxaan leeyahay waqti dheer iska dheh waqtiga aan bilaabay mar haddii aan halkan joogay 1981 that's 42 years ago idaacaddan aan ka hadli jiray markaas ka hor you do the maths waa muddo aad u dheer saan qiyaasayo laakiin taas madasheeda iyo quruxdeeda ayay lahayd waxaan uga abaaldhaqayaa inta isoo garatay ee soo xasuusatay oo intaasoo dhan soo duuday tan kale ee labaadna waxa ay tahay midda ku saabsan VOA magaca maanta aan ku joogno ama ha ahaadeen kuwa nala jooga Washington iyo adduunka daafihiisa ama ha ahaadeen kuwa kale na wada yaqaana iyagoo dhan ayaa iskale magaca iyo mas'uuliyadda iyo waxa wanaaga ee VOA ay keensatay oo ah haddaan hal mar xuso hal qodob ka xuso balansiga iyo kalsoonida dadku ay ku qabaan haddii wax war la soo sheego waxaad arkaysaa iyadoo la leeyahay VOA ma sheegtay oo markii la yiraahdo ha kadib kalsoonida la qaado waad arkaysaa waqtigu waas guray aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan wuu mahadsan yahay waxaa la yidhaha awoorkaagu waa ka culus yahay kuwa kale because laba qof oo culus ayaa ku wada siinaya marka waa mahad gooniya iyaduna thank you very much alaale waxaa loogu asteeyay inuu abaalmarintan ku qaato sanad guuradii kontonaad ayaa 4 bilood ka harsan tahay sanad guuradii kontonaad ee uu wariye ahaa baa laga wadaa haddaan idiin si jilciyo aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan waxaan ku socon doonaa abaalmarinaha waxaan u yeedhi doonaa cabdiraxmaan mukhtaar oo ah nin dhalinyaro ah muddadii ugu dambeysay oo lagu qiyaasayo 22 sanana ku dhex jiray bulshada isla markaana u adeegayay oo wax u qabanayay waxa uu aasaasay organization la yiraahdo Hiil Dhalinyaro oo ka shaqeeya ama la tacaala dhalinyarada ka soo kabanaya maandooriyayaasha cabdiraxmaan waan ku faraxsanahay maanta in abaalmarinta lagu guddoonsiinayo soo dhawow cabdiraxmaan waxa uu ku guuleystay abaalmarinta Community Champion
sacab baan doonayaa inaad maqashiisaan cabdiraxmaan maadaama uu yahay adeega bulsho waxaan u yeedhi doonaa oo abaalmarintiisa isaguna caawa qaadan doonaa fanaan in badan masraxyada soo shiday waa fanaan dalmar yare waxaan maqlayaa xagga dambe hablo kale dalmar yare waxaan daawan jirnay annagoo yaryar laakiin waxaan leeyahay dalmar waa dhalinyaro السلام عليكم waxaan leeyahay sanad guuro wacan Somali Museum 10 sano jirsatay 10 sanana oday ay ugu tilmaami doontiin 10 sanana waa la soo shaqeynaya Somali Museum siyaabo kala duwan aad baan ugu mahadcelinayaa thank you Adar Usman aad baad u mahadsantahay dalmaryare waxa la yiri maxaa lagu yiri dalmaryare yaraanta ka saar baa la yiri mascad baana yiri arintaas yaraanta un ka saar waayo koofiyadaada iska qaadid wax kale la arkaya aad iyo aad baan ugu sidaya ila qalbiya fanaan dalmaryare sacab aynu ku qalbino waxaan doonayaa inaan bartan uga yeedho ama ka xuso laba qof oo inaga maqan laakiin abaalmarino loogu talagalay oo madxafku guddoonsiin lahaa waa mulki xuseen oo iyaduna ku guulaysatay abaalmarinta community champion iyo cabdixakiin cabdi ismaaciil oo ka tirsan SNTV oo isaguna abaalmarinta community champion ku guulaystay cabdixakiin waxa abaalmarintiisa uu soo wakiishay oo u guddoomi doonta ayaan Axmed Caydiid ayaan kaaba waxaana guddoonsiin doonaa abaalmarintaas Adeer Cismaan